السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود إذا لهانتين بميل كستو الدنيا دات كجوكتان كسر هذا برامج قارو كم إذا برامج شدين كوجت على التلفزيون كSBC مناسبة كود أغسطس وكو بيجان سنة جورة تدبي تنادي كسو وركتي حل جديد بدل لو تاجي دولة بنتلان برامج كنا قار كوحس قارو قدو الاستاجي دونا شرار كي يسدو كلا مرحلة دي كلا دونا اللو صومري أساس كي بنتلان يسدو كلا هرمر كي قارتي أنت جرتي يهال كي هيك سنيسو برامج كنا قار كوحيقو مرتيا سياسي aqoon-yahan taariikhyahan barqad cali saalax oo kamid ah dadkii u soo joogay aasaaskii Puntland xog badan ka haya taariikhda Puntland iyo sidoo kale guud ahaan Soomaaliya mudane barqad cali saalax anoo kaaga mahadcelinaya waqtigaaga markood ku soo dhaw telefishinka SBC oo dabcan maanta aad u warramaysid asoo kamid ah TV-da ku hadla afka Soomaaliga waa mahadsantahay waa dhawahay marka hore waxaan aad iyo aad u salaamayaa qoladina ama milkiilaha ha noqoto ama shaqaalaha ha noqoto dadka shaqeeya telefishinka iyo idaacadda SBC oo ahayd kuwii ugu horeeyay markii raadiyo aan loo eego ama telefishin loo eego oo laga hirgeliyay gobolada Puntland markaas xoogaa hakad baa galay laakiin waxaan aad iyo aad ugu hambalyeeynaya soo noqoshada ay soo noqdeen oo maanta u walba yahay mid caalami ah sida daraadeed waxaan leeyahay waa guul noo soo hoyatay dadka iyo dalkaba waayo iskaarsiintu waxay ka mid tahay dhidibada u waaweyn ama tiirarka u waaweyn dalku ku taagan yahay dalna haddaan iskaarsiin uusan lahayn oo qorshayaashiisa iyo yani programka ama hawlaha uu leeyahay telefishinadaas lagala socon ama idaacadaha lagala socon haddee waa meel uun cidla ah oo aan cidi joogin bay noqonaysaa sidaa daraaddeed aad baan ugu hambalyeynayaa waa mid tan labaad marxaladaha ay soo martay markii Puntland la asaasay 1990 waan ka dhaxgalay mudane barqad waxaan ka horeysiinayaa taa marxaladaha maxaa horta dhaliyay in la aasaaso balmaamul koowaad waa run waxa dhaliyay markii u horeysay markii burburku dhacay dawladii dhexe ay meesha ka baxday waad garanaysaa dagaal la sokeeyay iyo waxyaabo caynkaas ah dhacay dadkii waa kala guulmeen oo gobollo baa loo kala guulmay goboladan dhexe oo aad gaalkacayo ama goboladan bari la isku yiraahdo North East la isku yiraahdo waxa gaar ahaan magaalooyinka ama goboladan saddexdan gobol markii hore oo la oran jiray Mudug iyo Nugaal iyo Bari ururkii la oran jiray ama jabhadii la oran jiray SSDF ayaa markaa waxay u ahayd xagga siyaasadda iyo xagga difaaciga waxa uu qabshanay 91 dabayaaqadiisii adigu bishii 6 June ayaan waxaan dareennay xoogaa in SSDF laba garab u kala socoto markaa xoogaa buuqi jiro rag dhalinyaro oo ciidamada ah iyo mushadadiin iska ah iyo rag kale oo siyaasiyiin ah iyo xoogaa muctadil iska ah waxaan ka baqnay sidii ka dhacay dhulka qaarka ama xamar oo kaleeto in nagu dhacdo dadkii ay qaybsamaan dabeedna dagaal sokeeyo gudaha ay dhacaan sida daraadeed shir baa lagu qabtay Garoowe waa 19 bishii June 26 ilaa 1 July baanu shir waxaan ku helahayn meesha la lagu qabtay Garoowe shirkaas waxa ujeedadiisu ahayd maadaama aan maamul jirin maadaama jabhadii ay xoogaa xaggii nimankii mucaskarka ah iyo nimankii siyaasiyiinta xoogaa aad baddo in hadalkoodu khilaaf ka soo socdo hoggaan baa loo baahday waxaanu markiiba la isla helay in ismadii joogay markaa odayaasha isna qiimo leh odayaala joogay waaweyn oo muctarif ah ilaa waaweyn ismadaas in xilkii dalka loo dhiibo hay'adda inoogu sareysa ama dalka hoggaan u ah waa ismada wixii ka baxsan difaac iyo siyaasadii markay noqoto laakiin hay'adda ambiilka ah oo aan laga daba hadli karin waa ismada run ahaanta way qaateen ismadii fikradaasna waa la wada qaatay qoladii jabhadda ahaydna way naga ogolaadeen oo aad baa loogu riyaaqay sidaasay ku timi bacda muddo haddii uu shirar badan la qabtay oo soo daray iyo xagga dhowr meelood isugu tagtagay markasta waa tii uu shirarkii Soomaalidu ay fashalayeen markii u dhameysay waxa dhacday meesha la yiraahdo Qarlo baa waxa lagu qabtay 94kii shirkii ama kongareeskii ururkii ama jabhadii SSDF waa tii la isku khilaafay laba garab bay noqdeen garab uu hogaaminaya Allahu naxariistay Cabdullaahi Yuusuf iyo garab uu hogaaminaya Maxamed Abshir Muuse dabadeed
adigu waxa lagu dadaalay in colaadi dhicin iyadana markaa wala dhaxgalay war siyaasadda oo xurguf siyaasadeed iska jiro laakiin yaan xabadi dhicin ama dagaal dhicin baa la yiri sidii baa lagu tagay arintii halka joogta shirkii Soodaal la aaday adigu shirkaas Soodaal ka bacdi waxa dhacday in ururkii ama jabhadii la balaariyay golaheedii dhexe 54 xubnood laga dhigay si tala badan loo helo marka waxay noqotay in la yiraahdo Cabdullaahi Yuusufna wixii gaashaandhiga iyo waxaankaas ama difaaca macaanka hawlahaas uu galo maxaa abshirna uu ahaado gudoomiyihii jabhadda ama ururka Soodaal markii la tagay ka bacd barlabaad kale isugu noqday Cabdullaahi wuxuu galay golihii meertada madaxweynayaasha shantii madaxweyne oo meertada ahayd sidaas maxaa abshirna wuxuu ku ahaa gudoomiyihii ururka dabadeed waa tuu shirkii ama gudigaas madaxweynayaashaas watay muddo haday shaqeeyeen gaaban dabadeed waa fashaleen watii last ama muddadii ugu dambeysay markii ugu dambeysay ay ku burbureen ama yani ku kala tageen qaahira shirkoodii marka ka bacd Cabdullaahi waa soo noqday marka Cabdullaahi ugu soo noqday intaan marka shirka la aadin oo yani ay burburin baa waxa la isla soo qaaday mar warsaan kuma jiri karee maamul hal la sameeyo maamulku neejarkeen noqonay ama dabeecadda sawa kaan yaabtimi rag baa waxa soo xilligaas xilmo ahaa waxay ahayd 19 waxay 1996 kii ahayd waxa la dabcan marka hal sameeyay waxa la marka si loo sameeyay rag baa waxa soo jeediyeen gudoomiye aan magacaabano nin gudoomiye oo marka gudi maamul noo soo dhiso halka maamul ka yeegleelo fikradaas ma shaqeeyno xoogaa waxa nin kaliya wax ma sameyn karo taas markii ay tagtay markii labaad oo odagii Cabdullaahina xaqi madaxtooyadii wareega ahayd iska baabaaday ama dhamaatay halka la isugu yimi waxa la go'aansaday in maamul la yeegleelo si wixii la soo maray aan dib hadana loogu noqono markasta maalin walba markay janjeersadaan yani waa la qabanayay oo xagga Ilaahayna waa ka socotay amarka Ilaahay rag dadaaliyana waa jireen ama ismaahaadeen ama odayaal kale ahaadeen ama wax kale ahaadeen ama bulshada oo rabitaankeedu u badnaan nabad inay helaan waxa had iyo jeer buushkareynaya ama isma noqdo ama siyaasi ha noqdo wixii dabada ka riixayay oo buushkareynayay oo doonayay midnimo iyo siyaasad mujtamaca ama shacbiga reer Puntland bulshada reer Puntland dabadeed shir wada tashaan hadana garow lagu qabto markii garow shirkii lagu qabto waxa la balaariyay fikradii ahayd ururkii SSDF kaliya waxa la yiri waxa jira sool iyo sanaag oo iyagu diyaar ahaa oo marka wada hadallo markii hore soo qadimay inay ka qayb galaan arrimahaas yani la midoobo okay urur baa jiray ma xisbi baa jiray marka la yiraahdo USP oo sool iyo sanaag xisbigaas marka nin xisbi daweyn buu ahaa wuxuu ahaa xisbigii gobonnimadii waqooyi wax ka dhaliyay oo Ingiriiskii afkiisa ka soo saaray ma cankiisa ka soo saaray intuu farta galiyay gobonnimadii waqooyi waxa kale jiray urur kale oo la yiraahdo SNDU oo isna mudug xageeda ka dhashay special galdogob saddexdii urur ma SSDF markii la isu yimi waxa la yiri bal shirka dawlad marka wada tashi la galay waxa la isla helay in la yeegleelo dawladda maamul la sameeyo maamulkii markii lagu heshiiyay waxa la yiri si loo sameeyaa waxa la yiri ergooyin halka طبعا ergooyinkii baa lagu dhaqaaqay waxa la yiri marka gobolada ergooyinka yaan lagu saleyn beel laakiin gobolada inkastoo gobol walba hadana beel hoos u watay hadana gobolada gobol intaas waa ka tiri gobolada xilligaas intay ahaayeen goboladu waxay ahaayeen 5 gobol iyo deegaanka Buuhoodle la origin adigu kongareeskaas la qabtay kongareeskeedu dad 400 iyo xoogaa ay isugu yimi waxa dhacday shirku markaan madash halku ka soconayay marka ma garow ahayd garow markasta garow kii hore wada tashiga kii dhaxad wada tashiga iyo ka markii dambeeto lagu furay oo la yidho maamul aan dhisano intuba garow ka socotay laana garow waxa loo calmaday ama waxa loo idmaday inay noqoto meel lagu shiro dhaxdhaxaad bay ahayd waayo waqooyi
sool iyo sanaag iyo bari iyo mudug meel dhexay ahayd meesha kaliya markaa dhexdhexaadka ah oo la isugu iman karay bay ahayd sida maaragtay haddii la yidhaha boosaaso ama gaalkacyo ama laascaano ama midna baran ama xoogaa waxay ahayd laakiin meesha kaliya oo laamidina ku taal gobolladana sababta caasimadda loogu doortay dad badan baa saa ku sheegay sababta caasimadda loogu doortana sidaa darteeday ahayd weliba waxaa caasimadda iyada tartan baa jiray iyadii boosaasaa la tartansiiyey cod baa loo qaaday waxaa ku guulaysatay Garowe inay magaalada madaxdii noqoto codkii u batay caasimadda la iskaga magacaabin tartan baa la geliyey iyadii boosaaso dabadna Garowe codkii u batay waana ku haboonayd in maaragtay maadaama markii hore shirarka lagu soo qabtay dhexdhexaadna ay ahayd in laga dhigo tan magaalada ganacsiga oo maaragtay ay noqoto marka laba culays baa fuul leh haddii laga dhigi lahaa halkan magaalada madaxda arinta ergooyinka dabcan inoo waday haddaan ku noqono ergooyinka shanta gobol aad sheegtay iyo magaalada Buuhoodle qaab cinkeeba loogu qaybiyay xilligaas ergooyinka waxaa lagu qaybiyey hadda ma aan xusuustin laakiin waa kala baday gobollo si kala baaxad weeraayeen midna gobolkan bari iyo gobolladii Ballaaraab ay ka mid ahaayeen ergada badan u badan helay gobolkan bari markii waa Ballaaraa karkaan ma go'in markaa maxuu ahaa ilaa iyo qarlo iyo hadii la yiraahdo bayla iyo adigu sidee degmo 6 degmo ah waaweyn oo degmooyinka hore qadiimka ah qarlo bayla isku shuban boosaaso qandala caluula lixdaas markaa jiray degmooyin waaweyn inta soo degmooyin yar markaa magacaawna laakiin aan effective noqon oo shaqo hawl galin ay jireen sida kuwa hadda shaqeeyo oo sida waaciye rako xaafuun baargaal waxaas waa iska magacaawna laakiin baladidin laakiin ma hawl galin waaga lixdan degmo asligu maanku ahaa ergooyinkii Garowe isugu yimaadeen laga kala keenay shanta gobol iyo Buuhoodle waxa inoo xigay waxa noo xigay ergooyinkii muddo hadii shirkii la waday marka ergooyinka halka lagu qabtay waxa la yiri marka shirkii wuxuu soconayaa ilaa dhowr bilood طبعا waxay noqotay in marka la yiraahdo hay'ado ama ajnabi ama dawladda ka caawinaya xagga dhaqaale iyo xagga ma jiro dadku inuu isku tashado ergooyinka 400 iyo xoogaa bay ahaayeen markii Garowe la isugu tagay waxaa lagu go'aansaday in dakhliga ka soo baxa dekada wixii mushaarooyin iyo maaha wixii kaleeto iyo aeroboortka Boosaaso oo si markaa aad u shaqeynayay labada in dakhligooda guddiga marka loo magacaabay maaliyadda oo 5 qof xubnood ka koobnaa guddigaas dhaqaalaha ururin jiray wixii markaa kharaj looga baahiyay Garowe geyn jiray dekadu waxay markaa laba agaasim bay ahayn agaasimka dekadaha iyo agaasimka furdooyinka ama customerska iyo aeroboortka iyana dakhli ka soo xiran jiray lacagta markaa saas loo ururin jiray guddigaas mas'uulka ahaa dabadna guddigii hawsha waday hoggaanka ayo إسلام محمد إلى هون حريصة إسلام موسى والجيرمان كأهبال دغالها قعنت هذا الجرين شري ساسي كسعودي الشركة رياه جابيناي دغالو ساسي كسعودي وأنا إسكت الشدة ضدك أو بالكلات أو ما عرفتي دغالو ودي السنة ما عرفت كلا ولا غير شدة مجرد إيه إسكت الشدة ساسي أنا كسعودي مدة هدي الشركة السعودية وحلقوا عن سدي مركين دورة شو دعوه وحل إسلاه لورتين معمول الدستور maamulku soo noqonaya baa la yiri maamulku waa taa inuu madaxweyne ku xigeen iyo baarlamaan iyo waxyeesho dabadna dawladda madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeen dawladda isaan baarlamaanku ansixiyo waxa soo dariiqada ay la maro markii hore waxa la doortay markii Ingiriiska waxay doorteen madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen Allah yarxamo Cabdullaahi Yuusuf Axmed iyo Maxamed Cabdi Xaashi oo ku xigeen ayaa la doortay labadii markii la doortay ayaa waxa la yiri markaa برلمانكي marka waxa la yeeshay loo dooranaya xisbiye ma jiraan barlamaanka waxa lagu sareeyay habeeleedkii iyadoo gobolna ay ahayd habeeleedna jiray waa jiray dadkii wax la siiyay si wax loo qaybiyay dad saluugana waa jireen kuwa aan la tixgelin oo tirada lagu daran barlamaanka cid ku yeelana waa jireen laakiin dadkii waxay ku dhaafeen mar hadii aan midnimo iyo dawladnimo helayno wixii laga maqnaadeen qof waliba wuxuu yiri xaasha wujud mar hadaan maamul helayno iyo dawlad iyo kala damayn iyo calan iyo dastuur yeelanayno waxay naga maqnaan taas waxa abaalkeeda iyo fikirkeeda iska laha bulshada reer Puntland sidii baa lagu yeegleelay markii madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen la doortay yaa waxa loo baahday barlamaanka beeladka aan ku sheegay lagu qaybshay barlamaankii markii la soo xulay waxa la yiri barlamaankii yaa ansixinaya hadii khilaafaad jiro yaa xalinaya khilaafaadka
guddi baa la magacaabay markaa ansixinta baarlamaanka iyo xalinta khilaafaadka haddii khilaafaad jiro الله يرحمه موسى إسلام فارح بقى قدومية كأها اسمه بقى مركز مقعد قدي دولة شركة مقعد دولة بتشوف تبرك بالحوالي من حواليك الجوجة وأول دولة دسن مركي لما قعابي قدي برلمانك وحبني برلمانك أي أنسحيين أنت واحد جفتي واحد كل جفتي ينالك ولا قلي markii madaxweynihii madaxweynkii la magacaabay baarlamaanka la soo xulo waxa la yiriyaa si wadaay hawshii oo waayo baakum meenigalay ma kala go gudigii dhaqaalaha markaan ku sheegay shad xubnoodaha yaa la yiri hawsha xagga nabadgelyada bulshada siyaasadda iyo dhaqaalaha ha sii wadan inta dawladda laga dhisay gudigaas sii waday markii baarlamaankii la ansixiyay ayaa ولي مدحوينه مدحوين كحولك waxay soo dhiseen dawladii sagaal wasiir bay markaa dawladdu ka koobnayd wasiir ku xigeenna ma jirin wasiir kale ma jirin laba wasaaraddu saarayeen mesela kaaga soo qado wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda waxbarashada arrimaha bulshada isla ahaayeen isku wasaarad bay ahaayeen xanaanada xoolaha iyo beeraha isku wasaarad bay ahaayeen ganacsiga iyo maaliyadda isku wasaarad bay ahaayeen sidoo kale qorsheynta iyo maxaan ku sheegay arrimaha xiriirka dibadda iyo isku mid bay ahaayeen yani laba la isu saaray sidoo kale baxay arrimaha gudaha iyo amniga iyo dawladaha hoose mid bay iyana isku ahay sagaal wasiir baad la magacaabay muddada mandatekoodu wuxuu ahaa muddada gaaban oo waxa la yiri 3 sano baa lagu magacaabay 3 sano markii ay soo dhawaatay xoogaa waxa yimi ismaandhaaf siyaasadeed khilaaf baa yimi dawladdii oo wali waxba naga dhiman waxbaan sameeynaa muddada yar hanoo ku daro wax iyo maya ay waatagaysan iyo adigu dabeedna arintii sidii la rabay oo ay ku socotay waxa moodaa in xoogaa wadadii laga weecdayo xoogaa colaad baa timi adigu waxa lagu dadaalay markasta in bal nabad dhacdo inkastoo nabadii la xakameyn waayo dad ku dhintay xabada dhaceen oo garow wax ka dhaceen waa ka aakhirkii adigu wax dhutisaba jaamaca ba waxa laga dhigay madaxweyne muddo yar buu ahaa xilligaas sanadku xilliga ma aha adigu isla waayada 9 iyo 4 labadii kun iyo adigu waxa 98 baa laga dhigan maya 98 markii la yagleelay 3 sano labadii kun iyo adigu meelahaas ahayd koowdii meelaha dabadeed jaamaca uu soo guuray maadaama garow waxoogaa khilaaf jiray halkan xaruntii ka dhigtay boosaashu dhigay dawladdiisii buu wasiiradiisu magacawday wasiiradaas jaamaca magacaabay hadda marka wax nooga sheegto tir ahaan intay dhamayaan والله ترى ما هي كله لكن رجل كم ده رجنا ونوريان رجنا وارنتين لكن دولة بمجابي هلا كانوا دولة كدسي لبعد مدمر كوجو شغالين أيه عبد الله يو ما دام حركي لجوا الجوال دي لهذا وبدري وكالة ماتي الخلاف سياسي ذلك كبر وضي عبد الله مركا وسو غوريلي وسو جبهدي دجال بعد عي lagu soo qaaday marka meeshii garow xogaadaga markii hore ka dhacay dad Cabdullaahi waa soo kacay wuxuu damcay inuu boosaaso ugu yimaado jaamacad dagaal halka awood kaga saaro meesha nasiib wanaag jaamacad madaxweyne ah marka wuxuu sameeyay wuxuu yiri intii aanu anagu darkada dad u dhiman lahaa dartaya aniga dawladeedu waa tagayna wixii joogay laakiin waa baxaya uu baxay Cabdullaahi maadaama qorar ku soo aadanaa dhanka isku shoob uu isagu maray run ahaanta arrin fikrad fiican oo geesimaal oo saliima oo dadka iyo dalka wadan ahayd buu jaamacad ku talabsaday taariikhdeena ugu jirtay hadii qofka bini aadanka ay geesi waxa la yiraahdaa ninkii nabadda ilaasha dadku waxa yiraahdaa ninkii soo mutaxawa 10 nin dilaa la yiraahdaa waa geesi maaha geesi waa ninkii nabadda ilaasha jaamacad aad buu ugu mahadsanaa wuxuu ahaa geesi wuxuu yiri أنا عبد الله ذاتك الدش وضع سوق بس من هذا النظر تيودي من مايو هالك سوق بحي وسير هذي غار بحرية وهالك الشوقي قارن واتجان عبد الله مركز سوق قرن هدي نين ذلك حوك وقبس هذا خاصة وحلينا أيوة حقبوا حاجة من غنى شيء سليمة والدجان ومارتي بو دقي حتى وسير هذي غار بو يروح يلي نبتكم شوق قرن واحد يلي ماي رجي تجي ما رجي كرته طبعا عبد الله الخاص وضع عن دولة هرله كي يجلي له خدش وزير عثمي وعبد الله مركح اللي قام العابي
magacaabay qoladii jaamacada jaamaha ku aan ahayn buu magacaabay wasiirada markasta waa soo badanayeen dhowr iyo 10 bay gaareen halkii bay ku socotay dabeed mucaarad yar baa jiro ismaandhaafka siyaasadeed ma harin qaniyada way ka socotay wataad maqashay jabhad baa dhalatay GBB bay u bixiyeen badbaadada jabhadda badbaadada Puntland baa loo bixiyay GBB meesha la yiraahdo dhuudo iyo meesha la yiraahdo alxamdulillah iyo dagaal ka dhacay dad badan baa naga dhinteen ku weynay dabeed waxay xarun ku dhigteen oo u guulmeen meesha la yiraahdo ceelaf weyn oo gobolka Sanaa ka mid ah arintaas dadkii marka bulshadii Puntland iyadoo wali doonaysa nabadii iyo deganaanshiga iyo dawladooda iyo midnimadooda inuu hana qaado looma deyn rag badan ama beelo badan ama odayaal badan baa isxilqaabay ilaa loogu tagay meesha ay joogeen oo lagu qanciyay in la nabadeeyo la wada hadlo iyaga iyo dawladii oo jabhadda ahayd cadoo dibadda ka yimid rag caynkaas yimid adigu arintii waxa lagu dhameeyay in jabhaddii la soo raro ciidamadeedii u socdaan boosaas la soo dajiyo dabeedna halka heshiis lagu gaaro sidii baa loo soo raray heshiis waxa la soo dajiyay magaalada boosada cirifkeeda halkan bundajiifka agteeda dabeed madaxtooyada boosada baa shirkii lagu qabtay afgarad baa dhacay halkaas saxiixii galabtii lagu kala qaatay maalintiina karin meel ay karin baa lagu qadeeyay halkaas ay jabhaddii la mideeyay Puntland qaybsanaanteedii isla markaa باور شيرين باجر دولتي وحبا وكغيب قال أنا معمول كي هوسته مدير كبعدنا عبد الله مدريسي وي لما تروح هذه وتو إمبي هذه هالكهذه من حوينها قرنك فهمتي وحمشي شو تاجين نقول مدحوين إنك استو محل عبد حاشي سي هي إنك اللي هذا عد حمود مسحرسي طبعا الدورش على غبتي محمود مسحرسي يبقى ترتمي هذا بدنا مرشحينته لكن لو ما كان واحد محمود مسحرسي هي محل عبد حاشي مركب مدحوينها سي هي أول ما مدحوين كحوينها waxa ku guuleystay maxamed musaxir saacada ku guuleystay hadda mudadiisii wax ku dhamaystay si ismuuda yani aad iyo aad u wanaagsan halka markuu mudadiisii dhamaystay mudadii taariikhii labaad bay noqotay waxa soo galay ama taariikhii saddexaad bay ahayd rag badan baa sharaxay waxa ku guuleystay عبد الرحمن محمد فروله madaxweynaha ku guuleystay say sharaf loo hufan khilaafiye buu qajirin buu cad ugu wareejiyay عبد الرحمن xigtana waxa tanada jirta oo عبد الرحمن فروله iyo عبد الولي isku soo horay عبد الولي ku guuleystay عبد الولينا si فروله عبد الرحمن فرولنا si adigu qurux badan ayuu ugu wareejiyay aan khilaafiye buu qajirin عبد الولي marxaladii soo martay Puntland sidaas ay ahayd 17 sano lama wada koobi karo hadii qofku ma wada sheegi karo laakiin inta mooyinka ahay waxa inta waxana budliga u ahaa markasta waxay ku socotay rabitaanka shacabka bulshada reer Puntland rabitaankooda wax kasta ku socdeen waayo markii khilaaf dhaco iyaga iska xilsaari jiray ama ismaha noqdeen ama ganacsatada noqdeen ama culimo adduunka noqdeen dadkeeda bay iska xilsaari jiray hadii khilaaf dhaco wixii dhaliilo marka la arko colaado badan baa jirayo dhowr jeer baa la huliyay halkan colaadan buuraha ka dadka jiray iyo kuwa ka horreeyay iyo waxba jiray yeelkeeda markasta uu magaca in la daryeelo la ilaaliyo baa qorsho ah ilaahay haddana bulshada wali tiibay aaminsan tahayo inkastoo ay haatan dawlad qawiyo 17 jirsatay maanta lagu tamaniyayo ama la higsanayo in أحساب سياسية فرمانين دبنا أي نقطة one man one vote أو حبيلات كي لجورو ويو إلى تعال جارو إننا شقينا أما بونتلانين شقيس أما برشة بونتلانين شقير مو قنمش مريه ولي لما قالين لعون لها مريه وحوي وإن سياسة لوجد به تاسع بسلك وياهي حتى وانا رجينا ودي لا وحنا وكبر ونايين وحي كلمنا وحنا رجال كل رجوينا هي دولة هذا جرثو مدحوينها هي مدحوين كحوينك يهربوا ذيانين إني ما دام راد هريل إني لما يشتري دونا بان كل رجوينا هي يو ولي بقى نرجع الله إني سيدا وقول صبرا سيبل الشدي ودرينتو ماشي وسعودانين وايو هذا هدي لي هذا مركا aan laga hadlin urur siyaasad leegsan iyo xisbiyaal badan aan laga hadlin
bulshadii waxay noqonaysaa dee maxay xaggee u soconaa weeye maxaa inoo yani maxay yahay yani objectivadan xaggee wada inoo maxaanu higsanaynaa wey laakiin taas marka hawlo jiro baa darteed xayiri baan filahayaa laakiin madaxweynuhu arrimihii uu ballan qaaday bay ka mid ahayd madaxweyne ku-xigeenku labaduba inay hawshaas sida ugu dhaqso badan u hirgeliyaan puntland marka taariikhdeeda anigu intaan ka ogahay intaasay ahayd ama madaxweyne ama dawlad ama cid kasta ha noqoto puntland mar kasta kow waxaa ka ahaa rabitaanka bulshada iyo bulshada reer puntland oo isku xiran oo waxaan doonayo nabadna jeclaa horumar iyo dawladnimada jeclaa waqti mudan aad baan kaaga mahadcelinaya waqtiga dabcan si wanaagsan ba aniga daawadayaasha daawanaya barnaamijkan baad uga sharaxday marxaladii kala duwanaa ee soo martay puntland iyo gurihii la gaarayba hal mid baan rabay inaan dib isku dul istaagno arinta dastuurtiga calanka oo kamid ah dabcan waxyaabaha qaybta weyn ka qaatay jiritaanka puntland iyo dawladnimada haatan ay sheeganayso marxaladii loo soo dastuurka puntland waa arinta dastuurka puntland iyo calanka marxaladii loo soo maray taas maxaan naga xasuusin karaa waxaa loo soo maray marxalado fiican baa loo soo maray horta calanku kolleyba dee waad aragtay calanku 3 nooc buu ka kooban yahay qaybta horeysa waa buluug oo calankeenii qarannimo ama Soomaaliya ayuu matalayaa xidigtiga dul saaran tan xigtaa waa cadaan oo wuxuu matalayaa waa nabad iyo caano haddii la fiirsho tan xigana waa cagaar oo waxa weeye barwaaqo dhulkii maartay barwaaqo haysanaayo hadii dhul badii bariba leh ayaan haysanaa resource-ka u qaalisan adduunyada hadda waxyaabaha laga gurto ayaa dhulkan hodan ku yahay kuna magacaaban yahay waa Puntland ay dhulka uduga la yiraahdo dhulka udugana hadda wax kale maaha waa fooxa beeyada iyo maydiga iyo waxa ka soo baxa habka ka soo baxa weeye dhulka kale male waa ku yaryahay labada gobol buu jiraa maydiga iyo beeyada iyo waxaad maqlaysaa waa gobolka Sanaag iyo gobolka Bari gobolka mudug bahalkii gobolka la yiraahdo Nugaal soonaha ayl baa waxa jira beeye yar aan badnayn laakiin inta kale waa labada gobol bay u qaybsan yihiin gobolka Bari haba u badnaaday gobolka Sanaag iyo gobolka Bari marka gobolka Sanaagna waa leeyahay xabka iyo faleenka gobolka Bari waa leeyahay laakiin uu kala badan yihiin oo gobolkan waa degmooyinkiisa badi waa xabagtaasi dhulkaas ku yaal waxa loo doortay marka calanka saasa laga dhigay calankii jamhuuriyadda oo xidigta dul saaran tahay tanoo nabad iyo Puntland goob nabadeed u taagan tahay tanoo cagaarkiya marka taa xidigta la saaray buluuga ah waxay matalaysay Puntland inay midnimo Soomaaliyeed doonto qarannimo Soomaaliyeed albaab walba iyo goob meel kasta u garaacdo si loo helo midnimo Soomaaliyeed ilaahay haddana wadadii bay ku taagan tahay waxay u taagan tahay in midnimo Soomaaliyeed hesho dadka hadlaya waxay doonaan iska yiraahdeen dad baa waxay yiraahdeen Puntland waxay noqotay goob hinaasoo markii maamul la sameeyo bay hinaasaan Puntland bari shay karsatay baa laga daadanaya hadii la yeelimayso bari isu bislaa way karsatay aan kula cuno waa ogoshahay laakiin aan ka daadiyay yeelayso Puntland marka saas ay ahayd calanku waxaa ka baayay dastuurka ku haray dastuurka mid ku meel gaar markii hore la sameeyay markii dambe waa la faguray wuxuu noqday markii la ogaaday baarlamaanka ee dastuur federaali inuu jiro ka hor imanayeen in la sameeyo kiiba la sameeyay qodobadii baa la soo eegay dabeedna markii la dhameystiray dastuurka wax ku yaal ma qaran akhrisatay laba sifo waa loo ansixin karaa cod dadweyne oo maartay individual sida codka la qaadayo one man one vote ko kale taa oo goobaha sanaadiiq la dhigo ha iyo maya iyo shir ama kongrees ama shirweyne bulshadu qabato kan maadaama marka urur siyaasadeed noo furayn dalku uusan lahayn maartay soo hodimo la sameyn tirakoob aan bulshada loo sameyn ID card lagu cod vootay uusan jirin waxa la isla gartay in shirweyne dadweyne shirweyne bulshada la qabto garow lagu qabto 480 xubnood baa la isugu keenay 6 xubnood baa xubin waxa tiri waa ka aamusta shanina waa diiday 474 xubnoodna way ogolaadeen saas ku ansaxay waan gartay adoo dib u eegaya dabcan xilliga Puntland ka hor waad joogtay deegaanadan haatanna intii ay furnay ee Puntland jirtay waa joogtay maxaa isleedahay horumar oo waa la gaaray intii Puntland ay jirtay oo nabad ah oo horumar ah oo ka xasuusi ka dhaa waagii dhowr marxaladood weeyday markii dawladdii sibilka jirtay nawaan ogaa
mar gumaysi joogana waan jiray oo inkastaan yar markaaba ahaa ama ardayska ah markii dawladda militariga jirtana waan joogay oo xilkii dadkii ka shaqeynayay xilal ka qabtay baan ahaa burburkiina hadee waanigaba ka sheekaynaya waxa isbedelay wax weyn waxbay dhaameen dawladdii sibilka ahayd demoqraasiyeen waxa la demoqraati baayil xisbiya badan baa jiray waxba jiray tartan baa la geli jiray dibutaasyaashu waxa xisbiyada ku kala guuleysan jiray dabadeed waxa la latay dawladda militariga dalkii qabsatay inqilaab baa lagu qabsaday xisbiyadii waa la tirtiray dastuurka jiray waa la laalay waxay noqotaa in markii dameeto muddo ka bacdi ay yiraahdaan xisbi baanu sameynay la yiraahdo xisbiga hantiwada kacaanka Soomaaliyeed halka xisbi buu ah waxa dhacday marka yeelkeed horumar bay sameeyeen waxyeelana waa jirtay wax tartan waa jiray يعني waxyaabaha la taaban karo oo maanta inuu weli ku faano waxa weeye taa halka taalo ku qoran oo farteena la qoray Soomaaliya la qoray gobolada qaar koodna hadee horumar baaba loo sameeyay midaan gobolkan hadda aynu joogno dhulka gobolada aan ka hadlayno wadada laamida iyo dekada iyo waxaas la sameeyay dhulka wax laga sameeyay waa jiray dhibaatona waa jirtay wax badan oo dhintay wax badan oo la xiray wax badan oo dhibaato waa jirtay taa markii laga yimaado tii la yaabay hayba burburiyay qori iyo qof bay noqotay dabeedna ninku ka xoog badnaa ama uu lahaa waad dili kartaa buu dhafoorka xabad kaga dhiftay way saddex yaaday waxay noqotay in la yaariyo tii military had noo soo cesheeyada noo rumeeyay dabadeed tii la soo dhaaf Puntland marka horumarkay gaadhay waxa ka mid ah dawlad bay dhisatay nabad bay doontay horumar baa jiray aan ka soo qaado marka wax kale ba iska daa waxbarashada inkastoo in dawladdu ku talaabsan bulshada keentay oo wadatay dad bulshada kamid ah keenay boosaaso aniga kula hadlaya elementary baa ka dhigtay ma awoodin ama gumaysigii uma uu sameyn xataa intermediate ka furin intermediate xamar oo 1500 oo kilomitir oo raf ah baan u mari jiray halkaas intermediate waa jiray iska daa secondary maantana meesha anigu elementary ka dhigtay inankaygi 6 jaamacadood baa boos ku yaal uu wiilay matalan gala kala dooranay fadliga waxa iska leh bulshada keentay bulshaduna haddii nabad helin oo hoggaan dejiye oo nabad ka shaqeeyo helin wax ma qabsan karteen adigu kabaale isku codsaday caynka waxa loogu geejaabay iyana hays cashan ciidankoodu hawada jiro marka bulshadu haddii helin dawlad siyaasadii u dejisa iyo nabadgelyadii ma socon karto dawladuna haday yahay bulshada dhaqaalihii iyo awoodii cududeed iyo fikirkii taladii siisa ma socon karto marka saas isugu xiran yihiin oo maartay xiriirka wada shaqaynta baa ka dhaxeeyay taas horumarka lagu gaaray waa halka ugu yar ganacsiga waa ta aragtay soo socdo boosaaso hadee niyar baato malin maayo 19 ka arki lahayd markii la soo qaxay iyo maanta say kala tahay iska daa magaalooyinka kaleeto garow waa ta aragtay magaalada madaxa maanta laga dhigayay ma qanday inaad aragtay maanta say tahay waa ta aragtay horumarka waxa keenay marka wax weyn nabadda dawladdu ma dhisin dawladda hoose iyo dalaamiyaal iyo bala sameeyay waa ka wada barda magaca dawladda way laakiin waxa kan dhismayaal iyo ganacsigan iyo xogga socda waxa iska leh awoodooda bulshada iska leh aad bayna ugu mahadsan tahay bulshadu hadii jeerna waa tiirka lagu taagan yahay way dawladduna hadee uu kuleyba fikirka saari waxa weeye saddex calaamad laga rabaa saddex arrimood baa laga rabaa bulshada waxay doonayso oo xaq ah inay u dhagan nuglaato wixii iyadu dawladdu rabto oo dan u ah dalka dadka inay bulshada gaarsiiso oo u bandhigto tusto iyo inay siyaasadda guud ka xirtirto oo difaac ka sameeyso ama nabadgelyo ah noqoto ama wax kasta noqoto wixii siyaasadda dibadda wixii soo kordho culeysana marka bulshada soo dhex dhigto oo kala tashato bulshadu go'aanka gaarto marka fulinaysa dawladda insha Allah garta horumar fara badan baad ka hadashay oo qof walba u muuqdo oo yimaada Puntland ismadii iyo aqoon-yahanadii iyo dad kale qaybta weyn ka qaatay dhismaha Puntland ma isla haydeen inay maalin u gaari doonto halkay maanta joogto misaal yar baan ku siinaya waagi gobonimada la qaadanayay 26 Juun waxay ahayd waqooyi qaadatay oo ceerigaaban tagay anigu qardo joogan ceerigaaba aadna reegan ku jiro oo halkaas aan kala qayb galay kowdii Juulayna xaggan ku soo noqonay dhibta weyn waxa igu ahayd kulay anigu shakhsi baan ama rag badan way la qabeen intii kale oo dhan xanuunimada galabtii markii la yidhi caawa 6 saac
يا عالكي ترياني اللي دجينا يا كي سومالي لصارية وحنا واحد علايس كربوين ترو نفط من كوسينيسا عالم سوماليات أو حرة عاول لحسا أما أنت يدنا أنا أرجع نفط كبح هذا لبت النوو أنا كربدي إنها يسبي كم ذا لكن الحمد لله رب العالمين وأنا جاري هبي كاسنا وكب غيري لكن كنت صورك بعد إنه كشك إنه هذنا إلهي إنه وسني بنقوم هذلنا تن مركب وحنا بس عضاء وبهم قال كنت أو كاني برشدو وفي لي شيء حدينه هذا دحق الله أفتكر قالنا كل يبدي وحون ولي كدي من ماشي للربي إن الجارين أما حق سياسي أما حق دقالة هالنقطة وادعي كرتها وأنا جرتها إلى صباح الوايو واحد لما يستلم بكلام الشلانين إن ضد واحد كوكي منين يسا لك السياسة ده مركين كأجنو واجع أن كل شيء دولته راسي بالكها حسبي البجري هذا واحد حصل صيده مع عبد الرحمن محمود فراول مركم مدحوينها هو تويل وحن سمينا ديمقراطيشن أنا وجودي دور شوية يعني كم لها ورها السياسة ده بفرمي إن ورها السياسة مشكلة دي كهرتي وين يدو حياة dadkii mujtamacii taageerayaasha u noqon lahaa waxay bal noqotay waxa kan NGO inuu yahay lacag mana la siinayaa bay oran jireen aan ka mid noqonay ururka lacag mana la siinaya waxa meesha yaal marka waxa weeye ururka markii la asaasayo ama xisbina dakhligu wuxuu ka yimaado dadka saddex nooc buu ku yimaadaa mid waa kamid ah marka hore qofku markuu ka mid noqonayo midna waa kan digaalka bileedka ama shahriyan la bixiyo bishii midna waa markii xisbiga culays ku yimaado ama uu shirweyne qabsanayo ama uu ergooyin dirsanayo taageerayaashiisa waxay bixiyaan lacag contribution oo halkaas dakhligu saas ugu yimaada xisaabta dawladda lacag ma siiso ajnabi lacag ka doontaan lacagta taageerayaashooda iyo iyaga dhaliya marka dhibta haysataa waxay tahay dadkii la yaabi maayo waxaan la yaabayn 1960 baa kacaankii dalka qabsaday 22 sano haystay ma yarag xisbi siyaasadeed burbur baa dhacay 24 sano ka dambeeyay ma yarag waan isqarni dad aan isqarni siyaasad iyo xisbi midna arag in yaadan maanta ururkii la sameeyo NGO u qaataan lacagna la siiyo dalayaab ma laha waa waxay arag oo aqoon u lahayn way lagu yaabay maayo laakiin maxaa loo baahan yahay dadka ururada siyaasadeed sameeysanaya inay wacyigelin badan sameeyaan oo dadka liqsiiyaan oo wax la qaadan karo ka dhigaan oo u sheegaan inay tahay xisbi ama urur siyaasadeed inuu yahay talaabo horumar hore lagu gaari karo oo laga guuri karo habeeleedka dabcan gabagabadii barnaamijka ayaan ku soo dhownahay Puntland haatan way 7 sano jirsatay munaasabadaheedii baa la xuseeyaa haatan dowladda dhan laga xuseeyaa ma la gaaray halka loo socday adoo dib u eegay wax marxaladii la soo maray intii haatan ay jirtay 17 sano maya lama gaarin mid yar kale ku siinaya midaal yar taanu hadda ka sheegnaa u dambeysay yani la gaarin ilaa ay Puntland xisbiya siyaasadeed qaran ka dhashaan oo dimuqraasiyadii halka ka muuqdo oo one man marmood noqoto weli lama gaarin meesha loo socdo taasna waa wada qodax badan xagga bulshada waataan ku sheegay aqoon bay u baahan tahay wacyigelin badan la siiyo xagga dawladana miisaanka saari waxa weeye degmooyinka hadda jira iyo gobolada jira in soo hadimo loo sameeyo inta koob la sameeyo in ID card la sameeyo intaas oo dhan waa hawl sugaysa dawladda oo la rabo in horumarka lagu gaaro sidaas marka aan ku iri wali lama gaarin meeshii la hegsanay taa markii la gaaro hadana mid kala muuqan doonta markii taa la gaaro urur siyaasi furmaan oo doorasho dhacdo one man moodo ay noqoto wax kala muuqan doona waayo waxa muuqan doona de horumarkii iyo see u socon kartaa iyo ururada hadafkooda iyo dawladda federaalka ay wada xiriirkoodii iyo wax badan baa muuqan doona markasta dawladdu hawshadu qabiyo iska jirta markasta qabiya jirta marna ma dhameystir gabagabadii mudane barqa cali saalax anoo ka mahadcelinaya waqtigaaga qaaliga aan siisay fariintaada aad u diraysid shacabka Puntland ee ka daawanaya dunida dacaladeeda fariinta aan diraya horta waxa weeye Soomaali weyn horta waa wixii daawanaya magacayga ama muuqaalka arka waa salaamaya oo Soomaaliya tan Puntland waxa weeye Puntland waa ka soo sheekaynay hadoo marxaladii soo madhaysay ku asaasantay aan ka soo sheekaynay maanta 17 bay jirsatay mid aan u diray waxa weeye Puntland waa ku soo tacabnay in yar oo la barbaarinaya wax nasiib wanaag maanta waa qaangaar gaashaan qaad weeye haddii gaashaan qaad markuu noqdo
ninkii keligiisa dana ma noolaan karo ma shaqayn karo isagoo gaashaan qaada garbihiisa inuu cidi socoto way u baahan tahay waxaan kula dardaarmayaa sida ay 17 sano u soo socotay midnimo dawladda iyo shacbigeedu inuu mid yahay inay doonaan had iyo jeer magac Soomaaliyeed inuu u taagan yahay ciddii hadda khilaaf keento oo dibad ka timaada ama meel kale ka timaada ama federaal noqoto ama wax kale noqoto wixii Puntland kala hortagaysaa marka hore waa nabad iyo Soomaalinimo taa haddii la waayo waa laga tashan doonaa iyadoo meesheeda weeye laakiin inay Puntland maanta iyadoo fadqalalo iyo dagaalo iyo dhibaato iyo buuq horseedo inta Puntland ka mid yihiin raalli kama aha dawladuna raalli kama aha waxaan kula dardaarmi lahaa wadada lagu taagan yahay oo nabadeed iyo midnimadaas lagu socdo wixii Soomaali iyo wanaag iyo walaalnimo doonayna hal soo dhaweeyo cidii dhibaato wadana haloo nasaxay hadii nasaxa la waayo la isu nasaxayn waayo nasaxada la diido ee markaa waxay la tahay wixii looga wareegi karo waa la aadiyaa markaa oo ilaahay ka dhigo laakiin kullayba waxa noo dana dariska meel kasta ha joogo dadka dariska ama ummadda Soomaaliyeed inay Puntland ku dhaqdo waana sidaas oo wada aragtay magaalada Boosaaso joogno ilaa 720 ama hadii basodon kaamahan baa ku yaala oo dadkii gobolada barakacayaasha ka yimi ah jaamacadaha ay dhigtaan hadda caruurta ugu dhalatay qaarkood lama oran karo marka gobolada buu ka yimi halkaas ku yimi sida lagu yiqeenay ku hana qaaday Puntland ku socoto baan dardaaranka ugu noqoriya iyo midnimadaas wixii ummad Soomaaliyeed oo wanaag doonayaan in la qabsato wixii khalad lagu arko ummad Soomaaliyeed khalad laga kala hor yimaadana bal marka hore in lagu doono naseex waayo maanta anaga danno ma aha Soomaali wuxuu yiri ninkii wax badan baa dadweynaha qabiil loo duraansado wax badan baa shacbiga daahirka la isku soo diray waa run waa la isku diri jiray dadka nin hogaamiye kooxda Tollaay magacay bahdaan reer hebel maanta ka laga siin tii laga yimi alxamdulillah rabbil caalamiin maanta yaan dib loogu noqon magacoodan yaa la soo qaadin taariikhda Soomaaliya ilaa midnimo Soomaaliyeed horumar waa in laga shaqeeyaa meel kasta aad joogtay Puntlandna wax allaalay wixii wanaag Soomaaliyeed midnimo raba way soo dhaweynaysaa anigu oray baan ahay siyaasi baan ahay xubnaha Puntland asaasi baan kamid ahaa xilal badan ma ka soo qabtay hatta aan mar 22 casho aan ahaa ku sii madaxweyne marka wasiirka diinta oo qaaftaha marka xogaana waanu ahay si gaarna waa ay damqaysaayo hadee ilaa iyo waagaas 17 sano yaan ku dhex jiray oo maamulkeedu wax ka waday gaar ahaan guud ahaanna hadee ummadda jecel nabadda iyo midnimadan kamid ahay oo Puntland aad mahadsantay guud ahaana daawadayaal barnaamijkeeni gaarka ah ee ku eegaynay taariikhda marxaladihii kala duwanaa ee soo martay Puntland iyo halka ay haatan hiigsanayso intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka waxa marti igu ah mahadaha ka gaadhay siyaasi aqoon-yahan taariikhyahan Barqad Cali Saalax oo wax badan oo xoog ka haya guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan deegaanada Puntland anigu Cabdinaas Daacad barnaamijkeeda la socodsiinay dhanka kaamirada mahadaha ka gaadhay waa Maxamed Cusmaan Muuse Damdam inta mid la mid ku kulmi doona barnaamijkan waa dhamaan bahda SBC International idin leh amaan Allah